السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود ولا ريال مانتا waxaan dhiganaynaa le phrase les utiliser en français partie numéro 7 phrasada loo isticmaal badan yahay luqadda Faransiiska qaybtii toddobaad ayaan dhiganaynaa maanta sidii hore waan ka duwaynaa sidoo kale waan dhiganaynaa kelmadahan qoray kelmadda markaan qoro kelmadda waan macnaheedu Soomaali ku macnaynay kadib kelmadda baa phrase gelini hadna phrase-ka waan sii macnayn doonaa sidaa baan u sameynaynaa insha Allah maanta ka bogasho wacan maanta kelmadda ugu horeysa waa parler kelmadda waa parler oo ah le verbe parler baan qaadanaynaa c'est un verbe de premier groupe waa verbe premier groupe verbiga baan qaadanaynaa af Soomaalina ku macnayn parler af Soomaaligeeduna waa hadlid kelmadda aan qaadanayno kelmadda baan gelinaynaa phrase kan gelinayno waxaan tusaale ahaan waxaan soo qaadanay je parle de langue waxaan yidhi phrase ka daan macneeyo je parle de langue anigu parle waxaan ku hadlayaa de langue laba luqadood anigu waxaan ku hadlaa laba luqadood kolka waxay ka dhan tahay phrase-kii baan qaadanay kelmaddii aan haysanay waxay ahayd parler qaabkii loo isticmaalayayna waan tusay oo phrase-ka baan gelinay phrase kalena waa la gelin karaa anigu ahaan saaban phrase-kan quraan ma soo qaatay aan gelinayaa phrase-kan waxaan kasii faa'iideysanay baan macnaynay ninka je pronom personnel oo adiga ku tilmaamaysaa waa aniga bay ka dhan tahay je parle waan hadlayaa ama je parle waxaan ku hadlaa bay ka dhan tahay anigu waxaan ku hadlaa de langue je parle de langue waxay ka dhan tahay anigu waxaan ku hadlaa laba luqadood bay ka dhigan tahay halka ayaan ku dhaafiyaa kelmaddaas waxaan ku xigisiin karayaa kelmad kale oo iyadna verbiga le verbe comprendre verbiga leeyahay magaciisa comprendre oo ah af Soomaali fahmid waa maxay af Soomaali waa fahmid verbigaas waa verbe troisième groupe verbe comprendre fahmid weeyaan verbiga baan isticmaalaynaa oo gelinaynaa phrase-kana insha Allah sidii markii hore oo kale ayaan phrase-kaasna macnaynay imika nous comprenons peu nous anaku comprenons waxaan fahmaynaa ama fahanaa peu in yar ayaan fahmaya marka leedahay nous comprenons peu nous anaka bay kala tahay anaku waxaan fahanaa in yar ama in yar baan fahmaynaa bay noqonaysaa ama in yar ayaan fahmaynaa kolka in yar baan fahmaynaa baa leedahay comprendre imika bise waad fahantay odhan kartaa tu as compris maad fahantay baa odhan kartaa saad isticmaal kartidba phrasadu way badan yihiin laakiin anigu waa tusaalaha baan kugu tusayaa kelmaddan qaadanayno maanta waa comprendre waa kelmaddii phrase la geliyey oo phrase-kan la sii macnaynayo weeyaan imika nous comprenons peu in yar ayaan fahmayaa marka leedahay ama fahmaynaa weeyaan peu-duna waa in yar nous waa anaka comprenons waa verbiga la conjugué nous comprenons waa fahmid peu-na waa in yar kolka in yar ayaan fahmayaa ama in yar ayaan fahmaynaa weeyaan okay kelmaddaasna xaggaa baan kaga gudbi kelmadda kale ku xigta waa métier oo ah waa nooc iyadu métier waa maxay waa shaqo métier Soomaaliya waa maxay waa shaqo laba kelmadood kala la macnaana waan soo dhigay dialogue la ka dhexeyn karsa dialogue iyo deux ay ku jiraan oo kelmadihii lamada métier la macna ah waan soo dhiganay labada kelmadood hadda garanayso métier oo la macna oo shaqo sheegaya commentaire-ka hoosta digu soo qori commentaire hoosta digu soo qoris insha Allah wala imika haddaan tusaale geliyo métier waa shaqo quel est ton métier tusaalahan quel est ton métier waa maxay shaqadaadu quel est ton métier waa maxay Soomaali waa maxay shaqadaadu waa maxay shaqadaadu quel est ton métier waa maxay shaqadaadu quel est ton métier aqranta Soomaali waa maxay shaqadaadu métier waa shaqo
kolkaas kaliya tomato xaqlanta Soomaali waa sidaas way kaliyan tahay waa maxay shaqadaadu kelmadda saaban ku dhaafayna kelmadda kale ku xigta waa maxay haddaan kala saaro meetii waa shaqo kaleena waa maxay xaqlanta kaleena xaqlanta waa maxay toona waa xaqlanta waa wax adigu aad leedahay nacam kale tomato shaqadaadu marka adigu shay adigu aad leedahay oo kale lagu tilmaamayo على سمع pronom possessive ومعي هيبقى pronom possessive بيبقى adjective possessive ويان adjective possessive واحد الله ده أي تلمانتا هو possessive ويان ton mon son sa ton تابع جرتا pronom possessive وجرامر كان كل جندنا دول له هذا من كده توميتي أغلى شقة ضوء ومحي كلمة أنا صباح الخبر قدافي كلمة كله كحكتا وإير أو قرشة قرطة شيء ساعد شيء كذا ساعد ومع صومالي قرشة وين ساعد في عربي صومالي قرشة برضه إنك ومحي قرشة قرطي وشيء كذا ساعد حلقة تشيء كذا أو إمك كلمة ده صدقني قلي فراس كلير أتول حاجة أنت كلير أتول ساعد إمسدي سواء ساعد وإمسدي كلير أتول ساعد إمسدي ساعدي وحلو معناه إن ديالوج نقصيص يسد لبعض ميت بيكون جرته بعدين خبرت كلي دوت ساعدي يقاب خلاص مايو أو ديالوج قد حد يقول حسمي أنكم معناه يقص في على معناه نقابت كهذه خلاصة كلير أتول ساعد وإمسدي والقدان معناه وقرشة قرط شيء غساء مساعد كلير أتول حاجة نتاعي ساعد إمسدي كلمة كلي كوحكته هذا نضعفه وكلمة ده ولا قرنا يتاني مقسي وين مقسي مهد سند مقسي يوم حي ومهد سند مقسي دافع قاعد يصير فيديو تنتو سالة جريو مقسي يوم حي ومهد سند أو فما محي هاد فما مهد سند مقسي محل أنتاي mahadsan in badan ma ku soo aragnay casharadan soo dhigan oo dhan maqsi iyadana waan soo daray markaan tusaale geliyo maqsi d'avoir regardé cette vidéo waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogan maqsi maxay dhan tahay mahadsanid d'avoir regardé ad daawateen maxay dhan tahay cette fiidiyogan waxaad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogan maqsi d'avoir regardé cette vidéo kelmadda ugu dambeysay hayd عشرة كلمته ما أنت فرصة قادنيني ماكسي أو مهد سنة ضافا كنا حقنا أنت باغوتة مثلا أنت ست فيديو مثلا أنت أبغى كسر تبغى ما أنت إن شاء الله إن هذا نقول عسبتي السبونية أنا سبسكرايب مسارة لايك تاع نقول دي رجلية كومنتير كانوا قصوا قرآن وفي سؤالها اللي قد حويجي 10 كده هيدا ده سؤال يزيد أنت كومنتير قصوا دحقر أنت بنكون جرجوني نمانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.